السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys كسر دوادا مركلة يمقال عصب أركض نقول صعتان والراش فيلمز قف كذا الله ولكن راش راش كان أكاد الله يو ورنتي برنامج والله مروجي وعبوري ساعة هترك كسر عرفتين وعلمية روشنجرة صوب صديق عن تعذير فيس مالي تقدم بيسو أحد مقلس هذا عدوين الأوجبة كوسو رم أهانتي قلبيا كتابني gaarahaan caasimada waxaa ogeyn inaan maqalnay gabar inta la dilay digsi la geliyay meedkeeda kasi koob dhibaatooyinka qaraxyada iyo waxyaabaha shacabka ka soo gaaray iyo dagaalada waxaa jira afooyin si dheer oo dhexdooda isku geystaan muuqaalkan goor dhaweeda waxaa soo geliyay TV-ga Shabeelle page-kiisa Facebook-ga iyo YouTube-ka marka waxaan isla arkaynaa dhacdada sidii u dhacday waxaan nooga waramayso aan isla daawan doonaa hooyada dhibanaha ee dhibka gaaray runtii waa argagax qof aad ilmahaaga ku aamintay in isla asigii u dhibaateeyo kolay hay'adaha baarista way gala doonaa arrinkan sida wax u dhacay laakiin hooyada ilmaha dhashay waxay ku andacoonaysaa in ilmaheeda la dhibaateeyay dhacdadana waxay igu dhacday shalay anigoo maqan oo isbitaal aaday balse cunug inaa walaashay u liibtaa rabay waa u dhiibi waay balse asidaa igu dhegay wuxuu dhahay ilaa cunug ana haaya anaa kuu sii fiiriyaa oo idhaahiyay balse cunug waa ugu tagaa sidoo ooyaa waan baxay isbitaalka markaan tegay oo soo noqday anigoo haanta dheer soo mara oo saaranahay mooto bajaaj ayaa xaalii dhahay cunugaadii woo dhintay asidaa isoo waayay cunugtaada woo dhintay dhahay cunugkee ma dhintaa dhahay cunugkee soo ku dhimatarahaa dhahay marka sida aan dhax markay xoobahay cunugkeygii xaasiisay wax ma siino dha cunugaadi naqas ku soo bood cunugkii xana naqas kuma boodayana wiliisa naqas kuma dhicin xaasi kala qowad ma ala kul xal guriga imaado guriga imaaday ambaar marka jooga cunuga fiid kulay hooyada waxay leedahay ilmahayga marka hore naqas kuma ogeen xanuunkaas uu ku sheegayna kuma ogeen marka waa sax de hooyo way garanaysaa ilmaheeda haduu xanuunsanaa hadii kale waa lagu soo boodi karaa ilmaha si rabaani waa lagu soo boodi karaa laakiin in maxaa la yiraahdaa ilmaha caafimaad ka ogeed dadana wuu dhintay lagu yiraahdo waa wax adag weeyaan qofta u horeys korkiisa fiirsan aniga ahay korkiisa fiiriye meelaha ana xaa ku taalay wijiga hortarkooda waxaan ka arkay qaraaf marka ka arkaan calooshka qaabiyay caloosha waxa lagu dhuftay bareyskan xoobahay oo doo bareyska u taqaanid ayaa lagu garaacay oo calooshiisi macal meesha u dhaxays meelaha diirmiya ku taalo caloosha ay hurtay hooya ahay marka cunugkeygii gacan kar darnaa dishay marka inaa cadaalad inaa loo qabtaan jeclahay wax walbo sharciya oo ku tiirsan yahay in wax walba loo sameeyaan jeclahay cunugkeygii gacan kar darnaa dishay marka gacan dish inaa dul doogshaa loo qabto loo xukumaan jeclahay hooya ahay baarka dabqa markii kulay hooyada waxay dalbatay in cadaalad ay hesho salaamida de odayga la turkiisa dambiga lagu soo oogay asaga la turkiisa inuu cadaalad helo waa muhiim because sida anaga u maleynayna inay wax u dhicin waa macquul laakiin mar haddii ilmaha korkiisa garaafo lagu arkay oo dhibaato garaafo korkiisa ay gaartay waa inuu sheegaa odayga garaafada sidii kusoo gaartay إذا ما أهان هو يسوع ماليات إني أقف بنادم إسكننا ويسوع لكن واحد بعد عكره هذا سيدا سيتهاي إن مسؤولية ده إلما هير إنه حنا هاينا يو عنتكو هاينا قضية أصاب قاضي إن رانتي هو إذا واحد دلبان إنسان إن عدالة إيه شو وين عن رجينا هنا عدالة هذي دونتو I'm sorry هذا أروح معي إن المير إن ما أنت سيدا لوجلا بل إن مقالك وحكوا إن ويلك يدي سي أو بها ويلك awaa wiilka waan yara dhageysanayna wiilkayga dhalay anna waxa wiilka dhalan dhalay meydkii waa soo qaadnay waa yaala wiilka waa kaligi anna wiilkan dhalay way ku kaligi dacwadii hadii la furay wuu qirtay gacantaydan oo ku sababsado waraana dil ya waa laga qoray waa laga akhriyay waa qirtay tolkiisii oo yimid iyo tolkaani waa u qirtay okay dacwadii markii la furay wuu qirtay ninka dilaaga ah wuu qirtay wuxuu yiraahday aniga dilay wow
subxaana allah. in meydka la raacsiiyo saasaan jeclaa lahaa fartintaas waxaan u diraa wixii islaama oo ashahaata iyo alle weynayo koonkan abuura marka kolay sida meesha hadda muuqaalka ka cad waxaa meesha ku cad inuu ninka qirtay inuu ilmaha yar dilay. I don't know, ma garan kara cadaawada intaa la eg oo u qabo ninka odayga ah ilmaha yar oo dilay oo adeerku yahay waalidku yahay 5 jirka ah ee saqiirka ah ee sabiga ah. Wallahi waa wax lagu xumaado. Waana dhacdooyinka ugubka ah, dhacdooyinka nagu soo laalaabanaya muddooyinkii ugu dambeeyay marka laga soo tago qaraxyada iyo dhibaatooyinka kale ee loo geysta shacabka. haddana waxaa soo badanaya shacabka dhibaatooyin dhexdooda isku geystaan. waxaan rajaynayaa ilmaha yar inuu cadaalad helo. muuqaalka oo dhammaystiran wuxuu ku jiraa TV-ga Shabeelle page-kiisa YouTube-ka iyo maxaa la yidhahdaa iyo Facebook-ka. waxaan leeyahay hooyada ilmaha dhashay samir iyo iman Allah kaa siiyo maamo. insha Allah cadaaladna way heli doonaan. hadduu dilaagii ninkaa yahay uuna qirtay ilmaha yar saqiirka waxba aan galabsanin gacantiisa ku dilay waa wixii shareecada ay ka qabtay wixii dadka ku heshiiyeen ha lagu qaadan dhiilaani. intaan kulmi doona muuqaalka xiga waxaan idinka digi doonaa sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.